أنا وحن كور وري لها بولي يا دارتان رق أبو عبيدة ميدانا يقبوحيا رق باوح بدل بعد الله سبحانه وتعالى مبادئ حنبارتني يدي عمر وحولي أنيق همي وحويانا أنهلو الرجال ودقم محي أبو عبيدة وحط المامين عالم كسوه ينلها هذا أبو عبيدة وكلها يسطو ولذلك بو حولي أنو همي وحويان إن أنهلو الرجال مثل أبو عبيدة. أخوتي في العقيدة وحن لنا إنسان هو بقدر همته ولذلك وبخاري وكسار ورين يبين عمر لقوريين يلاضون إني لو جهز الجيش وأنا في الصلاة إذا كيك واحد يريد حتى أنا صلاة كتيرة إنسان هو بقدر همته وإنت وكور وريا إنت إلاكته هدي همي قاقو صاقوبته أو نقض همي أدون كلية وحبا ما سو سارس عدة لكن همي وين سيدا وحبا سو سارس أي فن من الفنون هذا ما أنت واحد إنه ينبضان أخرنا كتاب الله يلاحظه كتاب البخاري يا أخري سيرة إمام البخاري إمام الذهبي في سير الأعلام وحاو كور رمي مثلا إمام البخاري محمد الوراق بكسر نقلنا محمد الوراق وأقرانتيسي وبخاري الرجعي وذا السعودين أي وحده دقان شري محمد الوراق وحلايا هي وحن أركي شري كنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة في كل ذلك يأخذ القداح فيوري نارا حلايا وحن أركي شري هبين ندي isagoo habeenkii 5 iyo 10 jeer ilaa 20 jeer habeen kasta toosa oo faynusta u shita oo wax qora qiyaas qof habeenkii 5 iyo 10 goor ka cayo faynus shidaya yani hamigaasi wuxuu dhalay maxay sahih al-bukhari dhalay inuu ninkani habeen kasta 20 jeer ama toosa ama 5 iyo 10 jeer tooso oo hamigaasi uu xambaarsan yahay inuu xadiista nabiga nabiyullaahi muhammad sallallahu wa sallam alayhi xadiistiisa saafiya inuu umada gaarsiin karo oo qabashka iyo khashinka ka reebi karo ayuu ku warwaray warwarkiisina uu gaadhay yani wuxuu toosaba 5 iyo 10 jeer ama 20 jeer uu tooso uu ka midhadhaliyay oo way soo baxday waxlana insaanku waa biqadri hammi hadii hammigaagu adduunku soo koobnaado oo aad u koobnaado أما هميقاقو نفطن يمشي لديك لهاون النقضة وهان كعب سقبين إنه قال الله مركاسي كوي لهي لها وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء طائفة إلهي وحكسي فهي قد أهمتهم أنفسهم وكوح نفتودون يورور قليسيبا إلهي ليه ومن صفات المنافقين كمركي لك المامي كوح وحا ورور كهيابا ويهاي نفتنوا سيدا يقول بحسان لهايين ميلا بدا سيودق لهايين وحي عمت سيقول رادين لهايين نفتنون كوكوبا وحلين وحي نوبا هنهاي إن dadka muuminiinta ay koraan oo qofku waa biqadri hammihi iyo hammi xooganaynu xambaarno oo haday humuumteenu dhaafi kari weydo xaas iyo caruur iyo biilkood haday dhaafi kari weydo war insaan hammi weyn sida wax badan buu bedeli karaa walaw kaana tifla inan yarna ha ahaadee ma rumaysantiin inuu inan yari dawladdan badbaadin karo أما مجتمع لأنه دبقدي كره وحقيقة شرته وهي نبي محمد بكور رمي صلوات الله وسلامه عليه حديثك وضع آخر حديثك محوش يجي صاحب إنه شري نبغرة أو سحر عليها لها أو سحر عليه كجبوبي أو دبتنا مركو كجبوبي سحر عليه وتليي أو يري محي واجريون يا عيد فني قوبره سحرك واحد ميل كلا كي ما دام هو حقل السكود والله برت وفني عيد ولا ببركرته سحديث كبكع لكن وفني ضدك أهل النار كون برتان ما هو فني ضدك أهل الجنة برتان وفني أهل النار كو علمية ذي برتان بكمدي
saaxirka kan wuxuu sheegay boqorkii inuu ka geeriyoonayo waana xaqiiqo jirta maamuladu aan ilaahay toos ugu xidhnayn maamul aan sixiroolo lahayn ma jiro xataa kuwa maanta jooga hal yaabaa inay idinku istiraadaan afrikiya meelaha waa loogu sheekeeyaa dunidaasi way horumarto dayaxay xisaabiyaan iyo halkan oo waxbay waa fooxlayaasha ugu waaweyn dunida guri aanu joogin ma jiro kacadna ku dhaho bale doorasho kuma galaan ilaa iyo sixiroolayaashu ay faaliyaan bale waxaan ku odhan karaa xisbig ma jiro xisaabta oo in dunida la yaqaana ilaa faaliyaashiisu leeyahay laakiin waana nudum la bartay iyo wax la oo shaytaannimo ku salaysan cid kasta oo qaybka aan wax ka ogayn allana aan ku kalsoonin qaybku baqu ku haya insaanku waxa aanu ogayni madowga markaad gasho ma baqataa maxaad uga baqataa waxay idhahdeen majhuulka shayga ahi sidiisu mukhiif u yahay qofku waxaanu garanayn wuu ka baqaa waxaanad garanayn waxaad tajribo u baratay ee aad la noolaatay hadhow ka cabsan maysa laakiin wax kastoo kugu cusub nolosha adigoo baqbaqayo oo aan dhiiranayn baad tegaysaa wax kastoo nolosha kugu cusub qaybku waa mukhiif waayo waa waxaanu qofku si uu galo wuxuu uga ogaado aanu garanaynin ilaahay baana xidhay oo cid kale wax ku ogaan kartaa ma jirto waxyu samaa wuxuu ka sheega mooyaane idan insaanku wuxuu isku dayayaa bal ayi ariiqin in la maro ariiq kalena lama hayo dee fooxisada mooyaane ariiq kaloo qayb wax lagaga sheegaa ma jiro uuna habar ama oday wuxuu doonaya ha noqdee qoladaas tidhahdaa ama dayax baanu akrinay ama saacabka dadkaanu akrinay ama turub baanu dhigdhignay ama faraanu dhulka ku mudnay wuxuu doonaya ha sheegee cid tidhaahda waxbaanu ka soo akrinaa kuwa unbaa jira marka dadka liito oo dhammi gaal iyo muslimba isku darinta liidataa qoladaa way u tagtaa nebi moxamedna waa ka yidhi salaadaba la iskama aqbalay ka fogaada saaxirkani wuxuu sheeganayaa anigu waan gaboobay dee aqoontiina anaa kuu hayee inan yaroo laqino fatina keenso aqoon badan wiil yaroo aqoon badan baa loo soo qabtay wiilkan yar waxbar baa la yidhi xadiidku nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu sheegaya wiilkan yari saaxirka inuu tago ka soo noqdo jidka dhexa buu ka helay nin wadaad oo meel iskaga cibaadaysta waa la yaro fadhiisto ninkiina kelmadiisa xaqa ahayd buu isaga sheegay wiilkii marna kanbuu la sii fadhiistaa marna ka kale xadiidka waa ka ku arkaysa inuu wiilka la garaacay oo sixirooluhuna uu dilo reerkuna uu dilo wadaadkii markuu u sheegay uu yidhi marka adiga wax ka yara dhegaysta xaggana waa layga dilay xaggana waa layga dilayna waa ka yidhi markaad xagga ku maqantayna waxaad tidhaahdaa qoladan baa habsaamisay xagga kale markaad jirtana waxaad tidhahdaa qolada kale ayaa habsaamisay wiilkii sidii buu iskaga waday wixii buu iska dhegaysanayay waxaad kaloo meesha ka arkaysaa xaqa iyo baatilka si siman haddii loo soo bandhigo laakiin mid aan qofka lagu tarqiinin fitrada saliimkii inay xaqa raacdo waayo ilmahan yar baatilkana khabiir baa u dhigayey xaqana wadaad baa isna u dhigayey laba ninoo nin waliba wixiisa yaqaan baa nin waliba wixiisa dhigayey hal qofoo qurana waa loo wada dhigayey qofkan un baana kaana u tegayey laakiin fitrada saliimkaa waxaad arkaysaa xaggu u janjeedhay ilmahan yar maalintii dambea daabadii ku soo baxday dadkii waddada ka jartay neef waxaan filaya riwaayadda imaamu axmed waxay sheegaysaa inuu yahay libaax mise imaamu tirmidi rtiisay ahayd adigu riwaayaadka qaarna waxay sheegaya daabatun fadiicatun cadiima qaar baa ku tilmaamaya inuu asad ahaa calaa kulli xaal xayawaankaa muftariska ee weyn baa waddadii goostay uu soo maray wiilkii dadkii iyo tuban waddadii iyo go-an oo bahal fadhiyo wuxuu yidhi maantaan tijaabinayaa bal labadii ninkii xaqa sheegayay wuxuu u qaatay dhagaxiisii dabeetana wuu ku tuuraya laakiin ilaahay buu baryaya wuxuu leeya ilahu agtaada haddii wadaadkaasi wuxuu sheegaya lagaga jacayl badan yahay sixiroole wuxuu sheegayo u fiirsa wuxuu horraysiinaya wadaadka waxaad arkaysaa inuu xagga wadaadka u janjeero xagga xaqa inuu janjeero waayo ma laha sixiroole arrinkiisa tajribe ma lehe wadaadkaa kiisa hubi buu leeyahy inuu kiisu sax yahay wuxuu yidhi ilahu haddii kaa wadaadka lagaga jecelaya agtaada arrinka sixiroolaha maanta gacantayda bahalkaa ku dil dabeetana waa ku tuuray biisinkuu qabta wuu ku kiciyey ilaahay waa ku dilay dadkii wiilkii yaraa waxaa la yidhi mid yaroo karaamo badan baaba meesha ka soo baxay oo waa la dabagalay wiilkii yaraa sheekhii wuu u sheego wuxuu yidhi caynkan baa dhacday saasaan sameeyey maanta waddadiiba intay xidhantay oo baalkaasi goostay sheekadiibuu u warramay wadaadkii wuxuu yidhi warniyow nin maanta laga bilaabo nin iga fadli badan baan kuu malaynaya inaad tahay laakiin dadka fiican waa la itixaamaa buu leeyahy waa la itixaamaaye
marka lagu itixaamanayo aniguun haysoo sheegi buu ku yidhi wiilkii yara marka lagu itixaamo waa la isibtilaynayaa bacda alibtilaaga ay soo tilmaamay wiilkii sidii isagoo iskaga wada ayuu noqday qof mustajaabu dacwa ah dadka ilaahay u barya oo akmaha mid aan indhaba ku dhalan mid barastay ku dhacday ilaahay intuu u barya indhuhu u baxaan oo sidaasuu noqday maalintii dambe boqorkii nin la joogay indhabeelay oo xaashiyada ka mid ah waxaa la yidhi wiil yar baa jiro dadku hadday u tagaan indhuhu ay biririx yidhaahdaan waxaa soo qaaday ninkii haadiyaadkii tirada badnaa wiilkiibuu u keenay wuxuu yidhi wiile waxaan doonaya inaad caafimaad siiso wiilku wuxuu ku yidhi anigu dadka ma caafimaad siiyo ilaahay baa caafimaad siiya innaga malaagka in yaruun isku tuhmaa dee dadka inuu ku harowsadaa buu ugu horraysiin lahaa inuu wuxuu baadho karayo baadho laakiin wiilkani wuxuu leeyahay anugu cidna ma caafimaad siiyo ilaahay baa caafimaad siiya